Good morning. Hey, you. How's the job hunting? Stressful. How so? I've been looking for a while, almost gave up. But I'm not a quitter. I kept looking until I landed a contract. Congrats, Ash. Thanks, David, for telling me about those freelancing websites. Of course. I'm glad I could help. Well, gotta go. See ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كسو dhawaada casharkeena saddexaad waa sii wadeena marka insha allahu tacaala waa daawateen muuqaalka waa kaasaa waxaa sheekeysanayo David iyo Ashley ayaa sheekeysanayo marka insha allah waxay ka hadlayeen ayaa faahfaahineynaa ayaa turjumaaneyna marka waan bilaabeynaa David wuxuu Ashley ku dhahay good morning ayuu ku dhahay good morning waa subax wanaagsan kadib Ashley waxay u jawaabtay waxay dhahday hey you ee dhahday macnaa waxa waaye dadka hadii isgaranayaan hey you is dhihi karaan macnaa waa salaan wuxuu ka mid yahay sida oo macnaa habka la isku salaamo way badan yihiin luqadda Mareykanka hey you wuxuu ka mid yahay dariiqooyinka la isku salaamo ayuu ka mid yahay macnaa waxaa isku salaamo dadka isgaranayo saaxiib yihiin laakiin qofka macnaa oo ka sareeyo macnaa ceeb waaye macnaa ma ku haboono ilaa dhahday hey you ama qofka oo shaqada ka sareeyo oo ku taliyo hey you ma dhihi kartid oo yaa hadda isku fiicantiin waa laga yaabaa laakiin professional ma ahan yaa macnaa waxa waaye dadka oo macnaa isgaranayo oo isku fiicana hey you is dhahayo waa fahamteen oo maleynayaa marka David uu weydiiyey Ashley uu weydiiyey wuxuu dhahay how's the job hunting ayuu weydiiyey okay hunting waxaa la dhahaa marka wax ugaarsanaysid ayaa la dhahaa yaa marka qofka wax ugaarsanayo ama wax dabayo hunting weeyaan hunting waa ugaarsiga qofka markuu wax ugaarsanayo ayaa hunting la dhahaa laakiin dadka qaarkood qofka markuu shaqada raadsanayo camal macnaa waa la dhihi karaa macnaa how's the job hunting macnaa shaqa raadiska camal shaqa raadiska see waaye yaa how's the job hunting shaqa raadiska macnaa shaqada ugaarsiga shaqada suu socdaa intuu marayaa qofka waa la dhihi karaa macnaa how's the job hunting waxaa loola jeedaa macnaa ka waran shaqa raadiskaaga ka waran camal ayaa loola jeedaa okay kadib iyada waxay dhahday stressful macnaa waxaa loola jeedaa stressful ayay dhahday macnaa waxaa loola jeedaa macnaa shaqa raadiska waa mid macnaa dhib badan ama mid oo walaac badan saasaa loola jeedaa waa macnaa oo dhib badan yahay in yar macnaa waxa waaye way ka fikirtaa wuu murug badan yahay yaa shaqa raadiska murugtiisa badan ayay ka wadaa kadib wuu weydiiyey asiga wuxuu dhahay how so ayada waxay dhahday stressful soo ma ahan macnaa shaqa raadiska macnaa waa mid oo murug badan oo dhib badan kadib asiga wuxuu weydiiyey how so macnaa maxaa ka wadaa suu dhib badan yahay saasuu ka wadaa qofka markii wax ku dhaho oo rabtid inuu ku faahfaahiyo oo rabtid macnaa explanation dheeraad inuu ku siiyo waxaa dhihi kartaa how so aa dhihi kartaa macnaa waxaa ula jeedaa macnaa ii faahfaahi yaa macnaa si macnaa wax dheeraad ii sharax soo fiican igu sheeg saasaa ka wadaa how so kadib ayada waxay dhahday I've been looking for a while almost gave up macnaa waxay dhahday I've been looking for a while cabaar waqti dheer shaqadaas raadinayay
okay. I've been looking معناها waan raadinayay for a while waqti dheer. A while waxa waaye mina cabaar ama waqti dheer ayaa loola jeedaa. Almost gave up. Waxaan u dhawaay ilaa mina iska daayabe. yaa ilaa iska daayo shaqaraadiska ilaa iska daayo ilaa iska joojiyo ayaa u dhawaay aad iyo aad u dhawaay. Give up waxaa markaa wax iska daasid oo hawsha iska dhaaftid oo joojisid yaa waxaa qabanaysa markaa iska daasid ayaa give up la dhahaa. Markii waxay dhahday shaqaraadiska waan waday laakiin micnaa waxaa u dhawaay aad iyo aad u dhawaay ilaa iska joojiyo oo raadiskaas shaqaraadiskaas aad iyo aad u dhawaay shaqaraadiska ilaa iska joojiyo. saasay dhahday almost gave up. kadib waxay raacsiisay waxay ku dartay but I'm not a quitter ama but I'm not a quitter. I kept looking until I landed a contract. marka waxay dhahday ani ma ihi qofka micnaa oo hawshiisa joojinayo. mina qofka hawsha bilaabo wuxuu hamigiisa ama wax dantiisa ugu jiro markuu bilaabo qofka micnaa oo joojinayo oo iska daynayo ma ihi ayay dhahday. mina I'm not a quitter. qofka hawsha oo wada hawsha joojinayo ama hadafkiisa oo joojinayo yaa hadafkiisa oo dhammaynin oo gaarin oo joojinayo ma ihi ayay dhahday. I kept looking until I landed a contract. waxay dhahday micnaa waa sii waday shaqaraadiska waan sii waday yaa ilaa oo aan oo ka helo contract oo micnaa contract waxaa la dhahaa micnaa qof ay heshay ee u shaqeyso marka waxay kala saxiixeen contract balanay kala saxiixeen micnaa heshiis ayay galeen. micnaa waxay dhahday shaqaraadiska waan waday ma joojinin ilaa oo aniga oo micnaa oo aan ka helo qof aan u shaqeeyo oo labadoodii heshiis kala saxiixaan. kadib asiga wuxuu dhahay congrats Ash. magaceedii waa Ashley. okay. congrats waxaa waa ereyda asliga ah waa congratulations. ereyda Ingiriiska waa congratulations laakiin dadka qaarkoodii congratulations ma dhahan waxay dhahaan congrats ayay dhahaan. waa isku midkii. qofka hadduu ku dhaho congrats micnaha wuxuu ula jeedaa congratulations micnaha waxaa laga wadaa hambalyo. okay. mabruuk ayaa laga wadaa. Ash waa magaceedii lasoo gaabiyey. magaceedii waa Ashley soo ma ahan. magaceedii waa Ashley marka Ash waa magaceedii lasoo gaabiyey. maraykanka waxay jecel yihiin magacyada inay soo gaabiyaan ayay jecel yihiin. micnaa qofka oo Jessica camal waxay ku wacaan Jess. qofka Jennifer camal waxay ku wacaan Jen. yaa micnaa dadka qofka Michael camal waxay ku wacaan Mike. magaca inay soo gaagaabiyaan ayay jecel yihiin. marka wuxuu ku dhahay David congrats Ash micnaa hambalyo Ash. Ashley ayuu ka wadaa magaceedii. kadib ayada waxay dhahday thanks David for telling me about those freelancing websites. thanks for telling me about those freelancing websites. micnaa waxay dhahday David aad iyo aad u mahadsan tahay oo aad ii sheegtay website-dahaas oo laga shaqeysto. okay. saas ayay dhahday. kadib asi wuxuu dhahay of course I'm glad I could help. dabcan uu dhahay micnaa dabcan yaa aada ugu faraxsanahay oo aan ku caawiyey. of course waa dabcan I'm glad aada ugu faraxsanahay I could help oo aniga aan ku caawiyey. kadib ayada waxay dhahday well gotta go see ya. micnaha waxa waaye see ya dadka waxaa isticmaalaan waxaa loola jeedaa micnaha waxa waaye waqti kale is arkeenaa. qofka hadduu ku dhaho see ya micnaha wuxuu la jeedaa waqti kale ayaa is arkeenaa. micnaha qofka asoo ku dhahay wuxuu la mid yahay asoo ku dhahay micnaha bye oo kale ama goodbye oo kale ama saasuu la mid yahay. qofka hadduu ku dhaho see ya maraykanka ayaa isticmaalaan. welna waan sharaxnay cashirka lasoo dhaafaan sharaxnay micnaha qofka waa dhahna laba micnuu leeyahay. micnada koowaad micnaha waa fiicanahay waa caafimaad qaba ayaa la dhahaa. micnada labaad waxa waaye micnaa qofka markuu wax ka fikiraayo
micnaa iluu dhehi lahaa adiga saas camal uu dhehi lahaa ama oo aamusi lahaa wuxuu dhahaa well uu dhahaa waa fahamteen oo malaynaa well gotta go micnaa waa sii soconayaa waqti kale is arkeenaa well gotta go see ya waa sii soconayaa gotta go waxa waaye waa sii soconayaa waa baxayaa see ya micnaa waqti kale is arkeenaa saas ayay dhahday marka waa kaasaa cashirkeena maanta bay noo dhamaatay muuqaalkan ku laalaabo daawo dhowr jeer daawo waxay u baahan tahay ku ceesho la soco wax haddaad rabto ilaa baratid waa in aad ku ceeshataa waa inaad ku ceshataa waqti kasto maxaa yeelay qofka hadduu wax ku ceeshto micnaa maskaxdiisa u galayaa waxa waaye wuxuu naqanayaa jileec uu naqanayaa fudeed uu naqanayaa maskaxdiisa u galayaa sidaasuu ku baranayaa marka cashirkan ku naqso meel ku qorta buuggiina ku qorta iyo waa nii sheegay hadda ka hor youtube gala youtube markaa gashin kadib waxaa ku qortaan learn english ku qora waxaa nii soo baxayo muuqaalo badan oo nii barayo luqadda ingiriiska marka ka faa'iideysta waa kaasaa su-aashiina dhan hoos ku qora commentiga hoos ku qora kheyr badan ayaan ii rajeynayaa إن شاء الله تعالى أنيقو زكريا محمد شوبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.